عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي habeen wanaagsan meel kastoo aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhowaada warbixinadii iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha saaxiibayaal kooxda kubadda cagta Manchester City oo guul weyn ka gaadhay kooxda lagu magacaabo Fulham daqiiqadii ugu dambeeyey ee kulanka saaxiibayaal ayaan isoo gudbin doonaa waxaana ka marnayn kooxda kubadda cagta Chelsea oo war naxdin ka soo hadhay daafaceeda bidix Chilwell iyo laacibka lagu magacaabo Kylian Mbappe oo laga saaray kaalinta koobaad maadaama uu ku jiray sanado badan uu ilaashanayay kaalinta koobaad laacibka ugu qiimaha badan dhammaan qaaradda Yurub iyo adduunkaba oo dhan ayaan saaxiibayaal isoo gudbin doonaa haddii aad tahay saaxiibka cusub barteenaan fadlan subscribe noo saar leegta iyo shartana nagu dhiirigeli haddii aad naga daawanaysid xagga iyo facebookana fadlan page-keena soo follow garee waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guul dirqi ka gaadhay kooxda reer London ee Fulham ayaa waxay ku soo gashay kulankan dardar xoog leh maadaama ogaan waxa ay ku dhigtay kooxda awoodda iyo murqaweynta qaaradda Yurub oo dhan sanadihii ugu dambeeyay haysatay ee Manchester City oo joogta minankeeda ayaa waxa ay rajaynaysay inay si dhab yar ku jiri doonto kooxda reer London ee Fulham laakiin Fulham ayaa waxa ay dhagax kala hortimid kooxda Manchester City oo hogaamiyo Pep Guardiola sanadkan waxa ognahay laacibka lagu magacaabo Erling Haaland ee reer Norway inuu sanadkan oohin iyo dhibaato badan ku hayo kooxaha kale ee ka dhisan horyaalka Premier League iyo dhammaan qaaradda Yurub oo dhan maadaama laacibkan haddana uu sii marayo gool gaaraya 23 gool waxaana meesha aan ka marnayn in sanadka hore horyaalka Premier League kabtiisa lagu qaaday 23 gool laakiin Haaland oo hurdada ka kiciyay kooxaha horyaalka Premier League daafaca horyaalka Premier League dhammaan iyo qaaradda Yurubna ay sanadkan calaacal badan ugu jiraan sidii ay iska difaaci lahaayeen laacibka reer Norway ee jooga dheer leh ee lagu magacaabo Erling Haaland marka saaxiibayaal kulankan ayaa wuxuu kulan xamaasad gooni leh waxaad moodaa kooxda kubadda cagta Manchester City oo gool loo hormaray daqiiqadii 17aad goolkaas oo ahaa gool darbada ayay hoggaanka ku qabteen kooxda kubadda cagta Manchester City laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City oo aad u dhiirigelinayay laacibadiisa maadaama uu arkay weerar celiska iyo siday bonus ku ursanayaan kooxda Fulham aan dab yar shidayn ayaa waxa uu sameeyay inuu dhiirigelin u sameeyo xirtiisa ama ciyaalkiisa uu maamulo tababaraha lagu magacaabo Pep Guardiola marka saaxiibayaal Fulham ayaana daqiiqadii 28 lagu abaalmariyay rigoorahaas oo khaladku keenay laacibka reer Portugal ee Cancelo marka Cancelo oo khalad ku galay naynka kooxda kubadda cagta Fulham ayaa waxaa lagu abaalmariyay Rosso halka kooxda Fulham lagu abaalmariyay inay qaataan rigoorahaasna gool ayuu loo bedelay saaxiibayaal laakiin waxa dadka dhan ay fajaceen oo yaab iyo amkaab ku dhacay markii daqiiqadii 93aad oo lagu daqiiqadaha dheeriga ay kooxda kubadda cagta Manchester City ay heshay rigoorahaasna lagu galay laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne ayaana khaladkaas lagu galay waxaana gool u bedelay khaladkaas oo aan inamaan caadi ahayn inkastoo portaha Fulham uu wax yar ama dirqi ku qaban lahaa ay ka farax basatay laacibka reer Norway ee lagu magacaabo Erling Haaland ayaa waxay ka dhigan tahay inuu leeyahay xil ciyaareedkan 18 gool horyaalka Premier League sanadkan fajaciya ama kaga ayuu ku hayaa laacibkan maadaama ognahay goolashu ka dhashay horyaalka Premier League oo wali bilow ah ayuu saaxiibada sanadkan gaashaanka u sii daruuraya laacibka lagu magacaabo Haaland marka saaxiibayaal waxaan kaloo eegi doonaa in laacibka lagu magacaabo Chilwell oo dhaawiciisa laga soo dayrinayo maadaama la sheegay inuu sheegi doono weedikaabka iyo bilaha soo socda oo dhan una tababara ku soo laaban doono bisha February ee sanadka soo socda ee kooxdiisa Chelsea marka saaxiibayaal dhibaato fara badan ayuu ku haysaa daafac la'aanta Chelsea maadaama ognahay Chelsea sanadkan inay daaficoodu aad u liito kadib markii ay ka dhaawacmeen laacibka lagu magacaabo James iyo Chilwell oo ahaa
mashiinka iyo dhaqaajiyaha kooxda Chelsea sanadkii lasoo dhaafay ee horyaalka Premier League iyo koob kale ay dheelayaan kooxda ku dhashay Stamford Bridge. marka laacibkaas macnaha waa aad baa looga diirinayaa allah ya salaam muxuu ahaa laacib goolaliya laacibka Chilwell asagoo difaacana Chelsea ay sanadkan waa ay ku hongoobaysaa inay laacibka reer Ingiriis ay garoomada ay ku soo celiso maadaama dhaawac badan ama dhaawac xun uu ka soo gaaray kulamadii lasoo dhaafay ee horyaalka Premier League saaxiibayaal. laacibka lagu magacaabo Kylian Mbappe ayaa labadii sano ee ugu dambeysay ilaashaday laacibka ugu qiimaha badan qaaradda Yurub, laakiin sanadkan waxaa awood ku qaaday laacibka lagu magacaabo Erling Haaland ayaana kaalintood ka galay laacibka lagu magacaabo Kylian Mbappe, laakiin Kylian Mbappe ma turkina kaalinta labaad ayuu fadhiistay saaxiibayaal, waxaana sanadkii 2017 180 milyan ay kooxda lagu magacaabo Paris ay kaga soo gadatay Monaco. marka saaxiibayaal sanadkan waa ka duwan sanadii hore oo ciyaaryahano badan ayaa boorka iska jafay, waana asxaabtay intaas ayaan kusoo gabeynaa wararkeena habeenimo. asxaabtay nabad.